yeah sidaad u qiyaasto ayaa lagu qiyaasi doonaa. haddaba dadka si xun u qiyaasi. hadday qofku ag maro fiiri qofkan hadhihin fiiri tan say u soconaysa no, sidaa adig ku qiyaasta ayaa lagu qiyaasi doonaa. yeah waxaan sheegaynaa wixii aan maqalnay oon aragnay. muuqaalkan waxaa iskale legend the legend master Sultan Seraar. aniga ninkaa cimaamadiisa meel baan saaray. ninkaa nin lugaha dhiiqa loo gelin kara maaha sida runta ah. aynu saaka tumano sacuur ciyaarnee saaxiibadeenaa safafku joogeenaa soo dhaweynee saamida guriguna baray sugnaanina soo baxa kale yaa heesihiisaa kamid heestaas waan jecla. hees kale waxaa jirta laho farxaan qaalidii dumar. farxaan qaalidii dumar qoraxay dhexdeediyo qabri dahar ku noolay haddaan qeexa sheekada kala qaada erayada quman waa la guursaday dindindindindindin. yaa heesihiisa aad baan u jeclaa. heese wuxuu leeyahay badan oo heesihii hore weliba labada hees hadda aan qaadayba waa heesihiisii kow ugu horreeyay waa nin dhalinyar oo runtii wuxuu arkay isagoo horta videoga Sultan Seraar aan shideynaa. waxaan la joogaa the one and only superstar Somali superstar waxaa waaye dee فنان هلا أنا وقت تغير سويت كل صح صح كل thank you so much عيارك هذا شفت كده صباح وحنا شوقا the one and only superstar Somali super عارف Sultan Seraar أنا وقت لك عيارتك ما هستير ويل كان ودنيا هذا عام بحيس طبعا داركيسة لبسكيسة ولا لبس نوع كلا يقاب كوسع عم بحي حتى وقاب ضدك بدن كاد يسكيرين يا لكن قفك أسرع حر سيد عم بحي أسرع يقان إن السلطان مركز حتى سيد يقولوا هي أما إنجليش كعبها how he grab it سيد وقف صدي حتى واسي uncomfortable قفك كدري مكره عاو رأي إنجليش أنكو هذا مادام حفظ عن جو مركز si wanaagsan buu laakiin Sultan uu ninkan la dhaqmay laakiin video ka horeeya jiray oo airportka markii Sultan Seraar airportka lagu soo dhaweynayay videogaas waxaa duubayay ama microphone-ka waxaa hayay wiil runtii baraha bulshada ku soo galay isagoo reer baadiye asagoo ka sheekeeya dhaqanka baadiyaha oo u baahanaa sida runta ah oo loo baahan yahay dhaqanka reer baadiyaha balse baa meesha ku jirta. dhaqanka reer baadiyaha waxaan u baahannahay waa jecelnahay wiilkaas inkastoo xitaa markii baraha bulshada soo gelay oo dhaqanka uu kusoo gelayay wiil kale waxaa jiray dhaqankaasna ka sheekeyn jiray oo aada u wanaagsanaa oo dhaqanka si fiican kala yaqaanay. asagu wuxuu ahaa qof ka sheekeeya markasta hal tuuladu ka imaaday dhaqanka ka jira oo aan garanayn dhaqamada kala duwan ee waddanka ka jira. bilmatal dhaqamo kala duwan ma ku dhawaad waxaa laga yaabaa inaad ka fikirtid Soomaalida hal dhaqan waayo wax saas arooska kale ee gobolada siyaabo kala duwan dadku aroosaa. gobol waxaa jira wiilku markuu aroosi waa in loo xiiro. gobol waxaa jira markii arooska loo soo diyaariyo reer gabadha laga aroosayo maca sonkorta iyo yaanyada loo soo diyaariyo. gobol waxaa jira waxyaabo kala duwan goboladu way kala duwan yihiin. kuwa waxaa jira wiilkii gabadhu isku daraan wixii arooska kala duwan yihiin gobolada. marka qofku at least waa inuu 70% ka yaqaan dhaqamada markaas uu ka shaqeyn karaa. si kastoo ay ahaataba adaab uu baadiyo ka imaaday dhaqamada dhibaatada ma lahayn inuu intuu garanayo ka sheekeeyo. waa ninkaas foosha xun aniga asla dadka ugu farxunta ninkaan aba iga sii farxunba. waa ninkaas foosha xun waa ninkaas aan u diyaarsanayn in uu majaajilaysta kala qalloocan oo noqon karaa majaajilaysti wax saas. laakiin dee inuu mic inta qaato dad fanaaniin iyo soo dhawaanaysa inuu dhex galo aniga lama hayn. laakiin maxaa dhacay haba dhex galeen waxaa dhacay wax loo humiliate. gabar buu u dhibo mic-ga gabadhi marka dhamaystay fanaanku waa taagan yahay dago fanaankii respect weyn uu sameynaya wiilkaas inuu hadluu sugaya. wiilka markuu mic-ga qabsaday oo yiri noo kala wada ويا وما تنتي سلاسي أنا بتقلي ويا وما تنتي سلاسي أنا بتقلي ويا وما تنتي سلاسي أنا بتقلي yeah
marka wax aad iyo aad runtii looga xumaado dadka Soomaalida aniga garan maayo wax ka qaldan dadka Soomaalida laakiin waa dad ummadoo dhan way ka xumaatay waxa uu sameeyay wiilkaas iyo sida ninka dhalinta yar uu sameeyay bahdilka ama himiliyeedka uu sameeyay waxaan ka baranaynaa arrinkan ama dadka hadda waqtigan la joogo dadka oo dhan waxay dareemeen khaladka dadku markii ay dareemaan khaladka waa calaamad wanaagsan weeye waa calaamad wanaagsan oo cadaynaysa dadku inay saxda iyo khaladka kala barteen inkastoo Soomaalidu ay khalad badan ku dhex jirtay muddo dheer hadda waxaa moodaa xoogaa maalmaha waxaa arkaysaa qofka wax laga hagaajiyo laga hadlaynayaa waa dadka dhan waa loo kacayaa Suldaan Seeraar waa nin wanaagsan intii baasha xitaa sii ballaaran isla waqtigiiba sidaan fahmaya maxaa yeelay gaariga ku jiraa isla waqtigiiba wuxuu yiri lagu yara wiilka oo intiisa garoon ka bixin wiilku la kulmay wuxuu ka duubay videogan aad u jeedaan marka ninka dhiiqada lugaha kala bax laakiin meesha waxaa ka jira Nairobi waxaan caadi ahaan Nairobi ka jira Nairobi waxaa ka jira kan kale oo wariyo ka yahay marka runtii waa wax aad iyo aad looga caroodo weeyaan waa wax aad iyo aad looga caroodo in qof dhalinyaro sidaan loo galo fiir waxaa jirta hadda aniga hadda muuqaalan duuba Soomaa muuqaalkan aan duubayo meel la tahay dhamaantiis inaan soo gelinayo ma soo gelinayo muuqaalkan inta aan u baahnahay baan soo gelinayaa in badanna waan daadin doonaa soo marka qofku uu qof wareysanayo waxaa jira waxyaabo badan oo la duubo laakiin aan loo baahan baa jira wuxuu sameyn jiray wiilkan baadiye ka imaaday ninkan reer baadiyaha wuxuu sameyn karay intuu duubo asagoo waxba degdeg intuu duubo oo wiilkan wuxuu sheegi lahaa uu sheego haddii wixii aysan xigmad badan lahayn inuu dileed garayo kadib oo anaga noo soo bandhigo inta saxda ah anka haddii clipkan la heli lahaa dee dabcan waxaa lahaa clip caadi ah oo asagoo hadlayo oo dul qaadanayo oo duubayo balse asaga haduusan rabin inuu dhigo pagekiisa ama YouTubekiisa uu ka reebi kara marka wuxuu leeyahay qof baadiye ka imaaday weeye mana ahayn inuu kaamirada inuu mic qaata ma ahayn waxaa ka mid ah fikradaasu garan waayo duub wax kasta balse wixii aragtid kala har intaasu garan waayay soo garatay ma duub wixii kasta balse wixii aragtid kala har haddana waa duuba wixii aan rabo muddo badan bay waxay halaabayaan laakiin inta aan rabaan kala haraya isma fahmin marka runtii waa wax aad looga xumaado aad iyo aad wax looga xumaado inuu qof Soomaaliyeed oo dhalinyaro asaan loo bahdilo adiga sidaa tahay dadka dhan ma noqon karaan adiga dabaadiye ka imaaday haddii oo afdheer aad leedahay haddii ma aragtay dadka indhaha ka gelaysid haddii dadku saas ma wada ah adiga saa tirtid dadku ma noqon karaan wiilkan wuxuu qabaa labis gooni ah surwaal dheer nooc kala ah jaakad yar oo mooditii gabdhaha kale waana waaleen dadkan moogta waana waaleen qolyahan hadda heesa waana waaleen gabdhihii dharkii gabdhaha hadda ay ku heesaan fanaaniinta jaakad yar oo loogu talagalay gabdhaha xuduntooda inay muuqato xilliga samarka gabdhaha xuduntooda banaanka soo dhigaan marka maxay xiranayaan mara aan xudunta qarinayna xiranayaan marka waa jaakadihii gabdhaha u gashana qofkii hadduu gashado marka gabar buu weegi wiilkii waa wiil buu weegyahay waa nin xoog leh waa ninkaas laba lafoodka laakiin dharkuu qabo wuxuu ekaanayaa gabar waa wax hadda socda wey waa steelka dadka heesa iyo dadka caanimada raadiya iyo waxyaabahaas wax hadda oo steel laga dhigayo waa waxa la dhaho normalize waxaa laga dhigayaa normal waxaas micnaha fanaaniintu waa meelaha waxyaabaha dhaqamada bay wax ka dhigaan normal waxyaabaha bulshooyinka ku adag ayaa lagu bilaabaa ayagoo markay aqbalaan dee dadkii oo dhan markaas way la xiranayaan hadda waxaa laga yaabaa 2025 dharkaas hadda maanta dadka kooda cararay oo xitaa ribaadiyihii uu ninkii u diiday inuu hadlo in dad badan oo ku labisan la arko markii la gaaro 2000 maaragtay 25 hadda maanta dharkaas disgusting way aniga xitaa ma jecel aniga xitaa markii ugu horreysay arkay waxaa iri dharkaan lama qurxana laakiin qofka asaga xor ah wuxuu xiranay fiir adiga wax ma jeclid laakiin waa ina aqbashid qofka aniga ma jecel dharkiisa labiskiisa
laakiin I have to accept him. waa inaan aqbalo, waa inaan asaga aqbalo inuu dad ku jiro, inuu hadlo, inuu iisoo dhawaado, inuu ila hadlo, iyo waa inaan aqbalo qofka. iyo dadka waxay kala garan laayihiin qofkan aqbal iyo waxay kala garan laayihiin iyo qofkan wixiisa jeclow. inaad jeclaatid maaha, waad jeclaan kartaa, waadna nici kartaa, laakiin qofkan ogolow inuu qof jira yahay oo isagu wuxuu rabaa gashado. dadka waxaa laga dhadhicin laayay, dadka waxay fahmi lahayn sidaas. ani marka ma jecla dharkaas labiska qaabkiisa, maxaa yeelay haddaan jeclahay waan u labisan lahaa siduu labisan oo kale, laakiin waan aqbalsanahay. waxaan leeyahay keep going, waan ku faanayaa. soo waxa garatay ma wiilkaas maskiinka ah ee la dhibaateeyey, waxaan u rajeynaynaa inuu noqdo mid maaragtay tilaab hore u qaada. maxaa la dhihi jiray, mid laga sheekeeyo. Sharma Boy baa hadda ka hor la wareysto, waxaa la yidhi Sharmow ka waran waagi intaad caanka kasii hadda ka hor TV waxay igu casuumeen buu yiri inaan heeso, markaas haddana ii diideen, way iga reebeen buu yiri dadkeesii. waxaa dhacday buu yiri 2 sano kadib TV-gii inuu ila daba taagan yahay kaala interview na siiyo, maxaa yeelay caan buu noqday markaas. so wiilkan hadda maanta uu diidayo inuu codkiisa kaliya gudubsado, hadduu doono isu soo dayne, waxaa laga yaabaa 2 sano kadib ama sanad kadib inuu noqdo Michael Jacksonka Soomaaliya. hadda wuu sheegtaa Michael Jackson ma, laakiin waxaan waa adduunow oogay wuxuu dhihi jira adduunow nacan la abaha ku yaal u dhihi jira. marka waxaan waa adduunyana way isbedeshaa. waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed noqda dad umana wanaagsan, noqda dad noocaan saan kala u dhaqmana ha noqonina. soo waxa garatay ma wiilkaas Soomaaliyeedna aan u ducayno. sidaas kale walaalkeen Suldaan Seraar waxaan leenahay Suldaan Seraar aan waa taageeraa runta laga hadlay siis aanu saaka tumano saxuur ciyaarna saaxiibadeena safafka joogeena soo dhaweeyna saamida guriguna baray sugnaanina soo bax kale yaa heesiisa kamid heestaas waan jeclahay. hees kale waxaa jirta loo farxaan qaalidii dumar qorraxay dhexdeediyo qabriga haralku noolay, haddaan qeexa sheekada kala qaada erayada quman waa la guursaday dindindindindin. yaa heesihiisa aad baan u jeclaa. heese wuxuu leeyahay badan oo heesihii hore weliba labada hees hadda aan qaaday waa heesihiisii kow ugu horreeyey. waa heesaha hadda dambe ma dhegeysto ma fiicna, laakiin kuwii hore oo aniga waxaan jeclahay native, sida waxaan jeclahay waxyaabaha qadiimiga ah, heesihiisa hore oo qadiimiga aan jeclahay. marka haddii aad ku cusubtahay YouTube channelkayga please subscribe saar, Facebook page-kaygana follow soo dheh. muuqaalkan muuqaal kamid intaan ku kulmi doono. sidaas iyo nabadgelyo.